waddadii iskoyska Fagax isla maantana aanu haddii Ilaahay raalli ka noqdo rajaynayna inaan furno maxaa la yiraahdaa waddadaas dadaalkaas Allah ku abaalmariyo waxaa hogaaminaya agaasimaha guud ee nadaafadda iyo bilic soo celinta maamulka gobolka Banaadir Mudane Sharmaarke iyo maamulada labada degmo ee Kaaraan iyo Yaaqshiid waxaanu hadalka munaasabadda u dhaafaynaa agaasimaha guud waxaan rajaynaynaa in bahweynta labada degmo shacabka labada degmo in ay doorkooda ka qaataan nadiifinta iyo hagaajinta Fagax oo labada degmo ka dhaxaysa muhiimna u ah maxaa la yiraahdaa isu socodka shacabka bismillaahir rahmaanir rahiim mar kale waxaan saaka taaganahay wadada Fagax ama isgoyska Fagax waxaan ka shaqeynaynaa inaan mar kale ka sameeyno biyo dhaamin kadib roobkii mehigaanka ee maalmahan da'ayay kana da'ay magaalada Muqdisho runtii annagu kama daali doono wax kasta hooshayna ku aadan nimcada Ilaahay keenana waan ku shukri doonaa waajibaadka nooga aadanna waan ka qaadan doonaa waxaan mar kale saaki dib u furi doonaa haddii Ilaahay idmo wadada isku xirtaa degmooyin fara badan ee isgoyska Fagax oo hadda dhabarkayga dambe ka muuqato arkaysaan biyaha faraha badan ee yaala waxaan rabaa inaan halkan baaq ugu soo jeediyo ganacsatada iyo bulshada ku dhaqan degmooyinka Kaaraan iyo Yaaqshiid inay ka qayb qaataan sidii goobtani xal loogu keeni lahaa halkaas oo ka duwan sida hadda ay tahay oo ah in biyaha la dhaamiyo la qaado ay haddana biyihii markay yimaadaan mar kale ay yimaadaan runtii bulshada degan hareeraha waddada waxaan ka codsan lahayn inay keenaan dhulkii lagu weynay lahaa warta si warta ay u galaan biyo fiican wartana loogu sameeyo dibudhis weyn runtii waxaan codsanaynaa in mar kale ay nagala shaqeeyaan bulshada deegaanka gaar ahaan qaybta degmada Kaaraan sidii warta loo weynay lahaa keenaanna dhulkii isbeyska loogu sameey lahaa warta Fagax runtiina waxaan rajaynaynaa in culeyskaasi maanta wixii ka dambeeya aan xal u heli doono bulshaduna ay qaadan doonaan baaqeena ah inay nagala shaqeeyaan dibna loo celiyo bilicdii magaalada Muqdisho siday u soo noqon lahaydna aan ka wada shaqeyno sidoo kale ganacsatada labada degmo iyo mas'uuliyiinta ka soo jeeda deegaanadan waxaan ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan sidii wadadan aad u jeedaan xal loogu keeni lahaa ay ka u noqon lahayd magaalada meelaha la midka ah oo kale waxaan rajaynayaa maanta marka halkan furno kadib in contribution iyo dhaqdhaqaaq uu ka bilaabo doono labada degmo oo xal loogu keenayo wadadan sababtoo ah Ilaahay nimcadiisuna way imaanaysaa wadadana halkeedii bay ku taala waxayna rabtaa xal waxaan rajaynaynaa in bulshada labada degmo ay nala qaadan doonaan halkaas waxaan mar kale u mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo nagu tartansiya ama nagula dardaarmo markasta inaan bulshadeena aanan ka daalin oo shaqeyno si qurux badan runtiina markasta annaga waxaan diyaar u nahay talada iyo tusaalihiisa inaan ku shaqeyno maadaama uu yahay hogaamiyihii gobolkani waxaan raalli ka nahay shaqo kasta aan qabanayno inaan bulshada ugu shaqeyno waxaan mar kale u mahadcelinayaa bahda saxaafadda ee halkan ku sugan rabtana inay gaarsiiso bulshada waxa halkan ka jira runtii annaga maamul gobolka Banaadir waxaan markaas u taagnaan doonaa inaan dib u soo celino bilicda magaalada lahayd Yeah.